fanaaniintii shakhsiyaadka ugu caansan Soomaalida waxaa inta badan laga soo dah qaadaa sheekooyin qarsoon oo aan badi la wada ogeyn. qaas ahaan waa wax iska qarsoon marka la eego jacayladii ay soo mareen, haddii ay ku guuleysteen amaba ay ku fashilmeen. murti ahaan waxaa jirta hal ku dhig xiran shaar cas oo jacaylaysan, guushana ku milan, dumarkuna inay maqlaan ay xiiseeyaan. taasi waa weedha ah rag walba oo guuleystaa geenye iyo gabar awood badan ayaa ka dambaysa calashaan garab siisay. muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa siro badan oo la xiriira fanaankii la xamiistaha weyn ee Khalid Kaamil. maxay ahayd qisadii jacayl ee xanuunka badneed ee soo martay noloshiisa, kana dhigtay abwaan qora ereyada jacaylka, la xamiista xulan yaqaana laxanka ugu fiican, sidaasna ay dadka badixadda ugu yeeraan boqorka jacaylka iyo midka taabta xaqiiqada. maxay tahay sababta heesihiisa ay ugu badan yihiin waxa loo yaqaano jacaylka? ka hor ka hadalka qisadan xanuunka badan, lagsar muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro, una sheergaray asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. waadna ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga. fanaankan aadka caanka uga ah heesaha jacaylka ee ku soo barbaaray magaalada Burco, loona garan og yahay Khalid Kaamil, ayaa xilliyadii lasoo dhaafin noqday fanaan heesihiisa aan laga dimin goobaha aroosyada. waxaana loo asteeyaa inuu yahay fanaan aad ugu xildheeraado xulashada ereyada qalbiga taabanaya iyo laxameynta ugu malabsan ee jacaylka muujinaysa. markaa gabadh aan ka helay inuu wuxuu sheegin kari waayba. ka hor ka hadalka qisada xanuunka badan ee jacaylka ah ee la xiriirta Khalid Kaamil, waa inaan ogaano in fanaanka heesihiisa ay ka ilmiisiyaan lamaanayaasha casrigan, kuna qasbo qof walba oo jacayl dareemayo uu tilmaamo in heesta Khalid Kaamil isaga ay ka turjumayso, haddii ay ahaan lahayd kuwa isguursaday iyo kuwa kaleba. heesaha ugu shidan ee uu ku luqeeya aadna loola dhacay waxaa hogaaminaysa heesta xafladii guurka la gaaray. lama iloobi karo heesta ku qafiifi kulankaaga, jawi bila, qofteedii ay kumee, u jeclaaw si dhab ah, iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan. sidoo kale heesaha uu laxanka saaray aadna looga wada helay waxaa ka mid ah heesta ay daawatay in ka badan 10 milyan oo uu ku luqeeyo fanaanka caanka ah Nimaan Hilaac, waana heesta ka raysta bukaanadii. inkastoo uu heeso badan oo aan tirsameyn uu laxanka saaray, waxaa sidoo kale laga xusi karaa heesta macaankii naftay kumee oo ay ku luqeeyaan lamaanayaasha heesa ee Cabdifataax Yare iyo Shaadi Sharaf, ha hirgalo jacaylka, iyo kuwo kale oo la yaabkooda wata. jacaylku waa waxa ugu macaan ee la haysto, waa waxa ugu xanuunka badan ee la waayo, sida ay jacaylaystayaashu sheegaan. haddaba Khalid Kaamil jacayl xanuun badan ayaa soo maray. suurayso adigoo qof aad u jecel misana aadan u sheegan karin, adigoo ka baqanaya in qofkaasi uu kugu gacan seero. uu jiraayo inkastoo aan meelo hore ka sheegin waqti maxay dhiiraan iska aadii intan ugu yaraa daadan hadda joogahay. markaa gabadh aan ka helay inuu wuxuu sheegin kari waayba hadii la dhowr sano. Khalid Kaamil inkastoo aaminsan yahay inuu yaraantiisii jeclaa inuu fanaan noqdo, haddana noqoshada fanaan iyo abwaan heesaha qora waxaa ka dambeeyey gabadhaasi sida la sheego. laakiin nasiib daro uma uusan sheegan jacaylkiisa, waxaana uu jacaylkii uu qarsanayay ee isaga ka dhigtay in keliya uu muuqayda ku nafiso. marka ay ka maqan tahan uu maskaxdiisa iyo qalbigiisaba ka soo saaro ereyo jacayl ka turjumaya. maxaad samayn jirta marka? maxaad isku mandaarin jirta maadaama aad qofkii waxba u sheegan karin aadna aad u jeceshahay? inaan arkoon inta aragtoon ma la sidii karaa malaha jacaylka salaajeed u soo gasho? ma oran karo waayo horaan u jeclaa yaraanteedii. fankaaga aad wuxuu niyadda ku yahay marka. laakiin waxaan oran karaa waxay igu dhiirigelisay qoftaasi inaan wax alifo erayo. inta waxa alifto oo wax ka sameeyay sheekadana aan ka sameyn doono soo wada insha Allah dilaa kariyo. si walbaba Khalid Kaamil waa abwaan la xamiiste aad ay u jecel yihiin dhammaan dhalinyarada, qaas ahaan kuwa jacaylka sahansaday ama la kulmay daadis jilbaha u dhigay. adiga ahaan haddii aan ku weydiiyo su'aal miisaan culus, ma ku soo maray jacayl aad sheegan weysay
oo aad ka baqatay in haddii qofka aad u sheegato uu garabkaaga banneeyo haddii aad geesi tahay qofkaasi qaybta commentiga ku soo meeshin gareey talabaadna heesaha Khaalid Kaamil haddii aad badhagaysato midda ayaad ugu jeceshahay ilaa iyo dhamaadka haddii aad nala joogtana waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto una share gareyso asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale waxaan idinka rajaynayaa in tirada yar ay ka dhiman 500,000 aad page-ka gaarsiisaan oo aad like iyo follow saartaan magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan